عوضاني midnaan caynayne oo carradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka بسم الله الرحمن الرحيم gaadhigani waxa weeye ambalaaskii MCH ka yube ilaahay khayr badan ha siiyo ay ku soo deeqeen hablaha deegaanka ama beesha garab sare gaadhigan waxa loogu talagalay wax allaale wixii emergency ah gabdhaha foolanaya oo umuli waaya ama haddii ay noqoto xanuun kale oo emergency in lagu qaado sida idin muuqato wuxuu leeyahay gaadhigani oxygentii saacadiina waa tan cabiraysay halka oxygentii qofka waa lagu xidhayaa inta laga gaarayo cusbitaal maxay tahay xaaladiisa caafimaad lagu eegayo kursigan fadhiyo waxa loogu talagalay in neersanka inay fariistaan kalkaaliyaasha caafimaadka khaanadahani waxa weeye kuwii alaabta emergency-ga lagu guranayay oo faleebooyinka iyo hadduu qofku dhaawac yahay qalabkii maxay tahay waxa ku jira first boxki kii maxay tahay safe garayto oo qalabkii uu wato haday tahay dhaymo hadii ay tahay qofku uu dhaawac yahay gaarigani waa gaari dhameystiran wuxuu leeyahay qaboojiyihiisii oo qofku inta uu halka ku jiro maxay tahay ma dareemayo inaba wax kul ah oo wuxuu leeyahay qaboojiyo heer caalamiya sariirtani marka qofka la rogayo way kala baxaysaa wax yeelan doontaa taayiro sida caadadaba taayo bulshooyintu ay umadu ay say u taqaano marka aad baan uga mahad celinaynaa community gabdhihii ku soo deeqay oo bulshada reer Yibe gobolka Sanaag ugu soo deeqay aad baan uga mahad celinaynaa inta waxaan kaga gudbayaa insha Allah waxaan ku soo dhaweyn doonaa hadii la yiraahdo xubin kamid ah qurba joogta haweenka ama hablaheena ee dalka dibadiisa ku nool kuwaas soo gaariga ugu tabarucay una bixiyay deegaanka insha Allah amina saaxib tacaale iyada gaariga wareejin doonta intiina halka isugu timi aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalkaad ka soo qayb gasheen xafladeena aynu qabanay ambalaaska wadan fog ka yimi oo muddo dheer soo socday ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inuu maanta nabad ku yimi idinkana aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa anigu waxaan ka yimi Mareykanka gobolka Minnesota waxaanu nahay oo aan kamid ahay gabdhaha qurba joogta ah iibiyay ambalaaska kan waxaana lagu kalifay idinku wanaaga aad sameyseen bahdina caafimaadka MCH ka heerka aad gaarsiisateen oo ilaahay idinla joogto iyo waxa aad qabanaysaan dadka nawaaxiga ku dhow Yibe ama ka fog masaafada dheer u baxaya aad soo qaadaysaan oo isxil qaadaysaan oo gawaarida u kareynaysaan oo aad haday socon weydo ama shaqeyn weydo aad ilaa cirgaabo u diraysaan horta bahda caafimaadka oo halka kan joogta oo hablaha leh ma sha Allah tabarakallah oo doctor kale aad iyo aad baan idin salaamaya aad iyo aad baan u mahadsantihiin insha Allah bidmillaahi kariin qurba joogtana weydin arki doontaa waa hablo iyo inan ka soo baxay MCH ka sidii hore ugu socon lahaa intii aan wixii aan ka arkayna ambalaas ma ahaane waxay mudan yihiin inuu MCH kiisu bedelo maragtay dhakhtar weyn oo dadkoo dhan lagu wada dabeeyo oo goobo leh maxaa dhadayay dhinaca umulisooyinka iyo maragtay waxaan leeyahay dadka laga keenayo dibadaha ama maragtay Yibe dhexdeeda inay lahaadaan qaybta caruurta insha Allah bidmillaahi kariim inay lahaadaan dumarka iyo ragga meelo lagu maragtay daaweeyo buu mudan yahay ما شاء الله انتي أنا أقول MCH كا وحلو سيكردية قيب كله وهوسه هيتي آدي آد بعض الشقين السان وحنا هدية ويالتين وآد متيستين إن هوش دنك كلا هذا وآد ماركتين بلاسكين قرب شوكتو أي آدي آد جسود دالين كفكرين إني ماركتي يجو هول يربي كوهيستان ماركتي عافمات كي دكتور هذا دتك دوكا شوجاي إني كفكرين دتك ودن كيو هو يشوجا أنا هيسن وحنا نجو هيسنو وأنا كفكرني
hablaha garabsale ilaahay hadaayo qofka hadhay ma jiro ha loo sii kala hawl badnaade waxay naga gaadhay hawl aad iyo aad u badan waxaan hawl lahaynina dee si yar kuma yimaadaan marka ilaahay waa nagu guuleeyey intii uu soo socdayna waxaan u joogay Ceergaabo si aan u dhammaystiro imaatinka uu yimaado soo gaadho Yube marka waxa weeyaan qurba joogta hablaha maanta halkan baan iyagana uga mahad celinayaa waa ogyihiin telefoonka kuma kala baxno maxaan dhahday markii uu la sameeyay juhdi badan baan naga galay habeen badan baan u soo joognay ama wax yar ma aha bad insha Allah bidmilaahi kariim gacanta marka aad ku qabataan waxaan doonaynaa in ambalaaskaasi intii baahi u qabta maaragtay Yube iyo agagaarkaba ka dhacda in wax loogu qabto idinkuna sidii MCH ka u haysan insha Allah bidmilaahi kariim ugu tabacdeen ayaad isagana tabaca marinaysaan hablihii qurbaha joogay Minnesota maanta guul bay idin soo hoyatay ambalaaskii wuu yimi Yube dhex jooga dadkiinana way idinka aqbaleen sida fiican aad ugu soo shaqayseen maxaan leeyahay aad iyo aad bayna u jeclaadeen maadaama anagu mas'uulidinka ahayna wax fiican baa ka dhacay maanta ma sha Allah tabarakallah idinkana waxa ay wax ka badan baad mudantihiin insha Allah bidmilaahi kariim adeeradayda sharafta leh yimi bahda caafimaadka Ibrahim Maxamed Xasan ma sha Allah tabarakallah Suldaan Ahmed Bashiir oo ambalaaska ma sha Allah tabarakallah hawl adag ilaa ma uu ka soo degay maxaan leeyahay Boosaaso ilaa ma Yube uu imanayay hawl adag ka qabtay aad iyo aad baan suldaanku ugu mahad celinaya adigana ma sha Allah tabarakallah ka hadda iyo naawna waxaan gudagalaynaa sidii aan wareejin lahaa furaha maxaan leeyahay ambalaaska waxaan ku wareejin doonaa ما شاء الله تبارك الله dad hore ugu hayay gacanta MCH ka maaragtay meel fiican ka gaaray si fiican u hayay gudidaas oo la yiraahdo tusmo marka gudidaas furaha ku wareejin doona insha Allah bismillaahi kariim tafadhal إله سبحانه وتعالى وما تسكله ما أنت هالك نسوق كان كاني آديات بيوم هتسيهين حبلها كرب سري قرب شوكتا مدرر وهذا دوري طبعا سنة بانو MCH كان يبقى عن تكوهيني قولها يجوا حلي هذا قولها تصمو دل يدبت بو اسوق جرا ما أنت وحنو ككلنا مقالوين كعرقابو قريب نجام إذا بوصاص وبرن meelo kala duwan baanu isaga nimi waxaan u nimi hawshatan iyo muddadii uu soo degayay sida ay noogu wareejiyeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaanu insha Allah taala rajaynaynaa sidii loogu talagalay inuu ambalaaskaas uu ahaado oo haddii allaba ku roon yahay cid allaale cidii baahi u qabtay ama waxa weeye duruufahaas ay naga daboolmeen annaguna waxaanu jecelahay insha Allah taala inaanu ku wareejino maayarka degmada Yube Ibrahim aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maantana ilaahay khayr ha ka dhigee waxa keenay gabdhaha dibadda ah oo deegaankan garab sare ama cidii la digtaba ambalaaskaas waxa loo keenay MCH ka waxa siday oo maamulkiisa siday oo furaha waday Amina Saalax Ducaale waxay ku wareejisay guddigii maamuleysay ee dhaqaale u urin jirtay haddayna kala joogaan maxay isqal loo qashay iyo Axmed Khayr furaha hadda waxaan ku wareejinayaa maamulaha cusbitaalka bahalka waxa la rabaa oo gacanta ku haynaya dawada halka taalaab ka mid yahay waxa la rabaa waa la kala amar qaataa amarkiisa waxa iska leh maxamed Cabdullaahi hadduu ka maqan yahay cidii ku xigtay baa leh waa jaranjaro waxa loogu talagalay bahalkaasi qof buu ka mooyee inaan wax shaqo kale lagu qaban qof buka loo diro hatta dad baa jira areadan iska dega ama masaakiina nalaama inta Yube xukunto ama inta aynu taageeri ka raba waxa la rabaa ambalaaskaas inuu ka hawlgalo mas'uuliyadiisa maanta laga bilaabo dadkii dibadda waa ka soo wareegay waxa ku shaqale cusbitaalka dadka u shaqeeya maxamed Cabdullaahi madaxda yahay iyo guddigii dhaqaaleyn jirtay labadan in kala joogan ayaa ku shaqale mas'uuliyadiisa koowaad gacanta waxa loo gelinayaa maxamed Cabdullaahi isaga laga rabaa mas'uuliyadiisa dareewalkii u dhiibanayo aaminayo hadhow hebel baa nin baa dareewal ii keenay iyo kana keenay iyo mid baa halka geeyo looma baahna mas'uuliyadda laga rabaa haddaad ku tarki fasho de guddida iyo community-ga magaaladu
oo de ay wax arkaan marka waa lagu soo xadgudbaya laakiin haddii kale furahaas iyo gaariga maanta lagu wareejay waxaa la rabaa siday tahay inaad ugu shaqaysid saad u shaqayn jirtay inaad u shaqaysid dadka inaad u daryeeshid nin dan gaarele inaanu kaxaysan qof buka inuu tago aduu mas-uuliyaddu aday ku saaran tahay de adigu haddaad iminka ama dawo ku doonto ama nidaam ku doonto lagaaga soo jeedi maayo laakiin gaariga anuu guddoomiyihii ahna allah ka dhigay nin ku xaragoonaya ama nin isteeninkiisa ayaan cusbitaalka ahayn haddii lagu arko waa digniin hawshaa wax iska leh oo hawshaad guddidii mas-uuliyadduna maanta laga bilaada adigii kugu soo wareegtay dareewalkaad keenaysid ciddaad u dhiibaysid ambalaaska siaad m c h kale oo kugu yimaadana nidaamku jaranjaradii sidii loo wada shaqayn jiray ayaa loo wada shaqaynayaa anigu dareewal kuu keeni maayo ninkana dareewal kuu keeni maayo adaa lagaa rabaa gaarigaa ninkaad ku aamini lahayd oo dareewalka ahaa oo ilaalin lahaa cusbitaalkiina laga rabaa markaad tegaysa haddaa ka tegaysidna cidda kugu xigta baad ku wareejinaysaa haddii cidda ku xigta maqan tahay cidda kale ka mas-uula bahdiina caafimaadka ayaa tahay madaxdiinana waa la shaqaynaysaan iga guddoon waxaan u mahadnaqayaa hablaha soo iibiyey oo xoogaagoodii carruurta biilka u siisan jireen ka soo jaray oo maanta halkaa keenay dadkeenna guduhuna aynu waxba iibsan weynay ayna ka naxay maanta dadkaasaan u mahadnaqaynaa iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa meesha ay ka soo saareen in ilaahay wax kale uga buuxiyaa gaarigu wuxuu u baahan yahay meel loo dhiso oo qafil leh oo lagu xidho oo aan hadda hoolkan oo kale ahayn ee qol ah oo kajeel weyn leh oo haddii uu halka kan gidaarka laga soo gelin karana laga soo geliyo haddii kalena qol meesha ugu dhow oo meelahan loo xidho oo kajeeliya qafiladiisa leh marka loo baahnana laga saaro aday mas-uuliyaddu ku saaran tahay waxaad si wanaagsan ula shaqaynaysaa guddida dhaqaalaha dalka ka ururisa ayna la soo shaqayn jirtay tashigeeni iyo wada socodkeeni annagu maamul guuda baanu nahay qofka buka ma naqaan irbadana ma naqaan laakiin haddaanu guux dareenno ama buubuq markaasaanu dafidin soo oranayna iska kaaya jira waa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin sida ay sheegeen guddidu qurba joogtu iyo sida uu sheegay guddoomiyuhu ahna boqorku oo dardaaranku weheliyey furigoo kula wareegnay waanuna ku aqbalay runtii waxa weeyaan wixii sharci iyo nidaam leh ee loogu talagalay haddii lagu socodsiiyo waxba kama xumaadaan sidaynu sharciga ugu wada soconnay ee markii hore sharcigu u yaalay insha allaahu baynugu wada shaqayn doonaa haddii laha yidhaahdo aad iyo aad baa umahadsantihiin insha allaahu waxaan kusoo dhaweyn doonaa haddii laha yidhaahdo xildhibaan ka mid ah golaha guurtida oo ina kala soo qayb galay wareejinta xildhibaan cali shire aniga oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida somalilan waxaan halkan ugu mahadnaqayaa jaaliyadda u keentay degaankooda ambalaaska sababtu ku tahay waxaan ugu mahadnaqayaa way ahayd annagu maadaamaanu ka tirsannahay dowlad baahiyaha dadka inaanu annagu buuxinaa bay ahayd nasiib darro waxba maanaan buuxin maadaamaanu waxba buuxin weynay cid waliba iyadaa isku tashata tashigan la isku tashaday oo jaaliyaduhu ay u keeneen ambalaaskan cid alle ciddii soo iibisay waan u mahadnaqayaa waxaana leeyahay waxba yaan dowlado iyo halkaa layna ka xigaa cidna lagu hadlaynine dadku inuu isaguun isku tashado waa firoon wixii uu ku tashado bun wax ku qaban karaa hadda ambalaa waxaanu joognaa m c h waa dee dad baa dhisay oo sidaa dadka hadeerba keenaya gaadiidka u keenaya baa dhisay waxay u baahan tahay iyadoo dadkaasi dhisay dowladaha dee tooska u sheeganaya wixii dhulka ay u qaban karaan inay u qabtaan waxyaalo badan oo hadeer ka muuqdo oo wax loogu qaban karo baa jira wixii loo keenaba dadka waxbay u galaan waxaan leeyahay aniga oo hadda communitigan ka tirsan annaguna aanu keeni kari weynay ambalaas ciddii keentay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hana arkeen haddii dee dadka wax loo qaban waayo wixii loo qaban waayo wixii ay xaq u leeyihiin in dadku isagu isku tashanayo oo wixii uu keensan karo oo dadkiisa uu qabsanayo uu ku khasban yahay
intaasaan anigu ku gebagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay xafladda aynu isugu nimi oo munaasibka ah MCHka Yube oo siduu hore wuxuu waagi hore ahaan jiray la ogyahay oo haatan had iyo goor tayadiisu ay aad isu soo tarayso oo ilaahay dadka wanaagsan oo dhalinyarada ah oo gudaha iyo dibadda jooga ilaahay u kiciyey oo hadda heerka wanaagsan maraya ilaa galabta gaarigii la keenay horta dadkaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay guulaysta dadka lacagta soo ururiyey xagga dibadda ka soo iibiyey iyo dadka dalka ka shaqeeyey oo gruubka ah kan gudaha iyo kan dibadda aad baan idin salaamayaa aad baan idinku mahadcelinayaa ma hadda koowaad ilaah ba iska leh laakiin markaynu bini aadan nahay wixii aynu u bognaa baynu mahadinaa waa idin mahadinaynaa aad baanu idin bogaadinaynaa marka taasuna horta sidaa weeye sidoo kale de meeshu waayuba waynu ogeenoo waa loo kacay dee waa dhakhtaradu way fogaayeen meeriska tuula miyaa bay ahayd intii dee dhaqdhaqaaqa yar iftiinkaa yar uu baxay aad iyo aad baa wax u soo dhawaadeen marka waxaan leenahay qolada dibaddana deeshiina idin macallina waa idin ducaynay waana idin bogaadinaynaa aamino weligeed ma arag dalka aqoonteeda ku heshay dalka waxtarka dalka inay hogaamiso nasiib bay u heshay weligeed ma arag waxaan malayaa inta ay ka shaqaynaysay ka hor inaan arag oo iyadaan weligeed arag ee yaro dhalatay ay ka bilowday aqoonteeda ka heshay inay wixii waxtar ah oo islaamnimo ah oo wadaninimo ah oo tulnimo inay ku shaqayso aqoonteeda dee ilaahay baa siiyey waxaan leenahay aqoontaada allah ku barakeeyo adiga iyo ciddii kaloo kula fasala gabdhaha dibadda jira iyo kuwa dalka jooga intiinaba gabdhu aad ba dalka uga shaqeeyaan ragga waa ka shaqo badan yihin waa ogahay oo ninkii uu qoriba waa ogyahay waxaanu leenahay ilaahayna aakhiro dee jannaha idin siiyo ifkana waxaa haysaan dad iyo dunyo ilaah idin barakay baanu leenahay qolatan gruubka oo dhalinyarada ahayna waa iftiinka dalka gudihiisa iyaguna ka jira oo haddii MCH tahay iyo haddii ay tahay waxbarasho tahay iyo wixii kale oo adeegyaaba waa u taagan habeen iyo maalin idinkana waxaanu idin leenahay hore u socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkan ka soo qaybgalayaasha xafladan ballaaran beri baanu ahaan jirnay MCH haddana waxaanu nahay health center baanu nahay health centerka ayay ka soo qayb gashay aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qurba joogta noo soo diyaarisay ambalaaska aanu ahayn aad iyo aad ugu baahnayn oo meesha keliya aanu ka ciilanahayn oo aan dadka iyaga ugu shaqaynaynin waxaanu ahayn dadkii dadkooda u shaqaynayay waxaanuna haysanin waxaanu ku shaqo tagno oo ah gaadhigina maadaama ambalaaskii ay naga soo ciil tireen hablaha iyagii qurba joogtaha aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa iyagana waxaanu leenahay ilaahay khayr ha idinku